tuulo yar ayaa waxaa ku noolaa cunug yar oo derbi jiif ah oo ay noloshu aad uga adkayd. maalin maalmaha ka mid ayaa waxa uu soo aaday qashin qubka si uu uga raabsado cunno qashinka liska soo fogeeyey. intii uu raadinayo waxa ay indhihiisu qabteen boorsho lasoo tuuray oo dhinaca taalla caaga qashinka uu soo jiiday oo waa uu eegay waxa ku guda jira. si kadis ah waxa uu ku arkay lacag dhan $40,000 oo ku guda jirta. inkastoo uu baahi badan u qabay lacagta, suurtagalna ahayd in uu danihiisa kaga faa'iidaysto, haddana waxa uu si geesinimada u go'aansaday in uu geeyo saldhigga booliiska si loo yaahiyo. saraakiisha booliiska ayaa la yaabay akhlaaq wanaagga iyo ammaanada cunuga yar, waxayna diyaariyeen qorshe dadweynaha ay kaga dalbanayaan in la caawiyo inanka yar si loogu dhiirigeliyo ammaanada. intaa kadib waxaa tuuladii ku faaftay qisadii cunugii darbijiifka ahaa, waxaana dadweynihii saamaysay daacadnimadiisii, waxayna go'aansadeen in ay caawiyaan. qorshihii waa uu guulaystay oo waxaa caawiyey dad badan, lacagtiina waxa ay gaartay $90,000. run ahaantii waxay ka badnayd labalaabka lacagtii uu helay. waxaa la sheegay in uusan hilmaamin saaxiibadii ay darbijiifka isla ahaayeen.